waad la socotaan xadiidkii nabiga calayhi salaam uu ku tilmaamay nin taabiciya, waa nin taabiciya, nin saxaabiya ma ah. saad la socotaan ummaddan waxaa ugu khayr badan asxaabta nebiga ka bacdi jiilka ku xigay, aladiina yalunahum uma aladiina yalunahum. yani taabiciinta oo dhan haddii laisu geeyo kulligood dad fiican baa ku jira, hal nin oo saxaabo ah agtiisa ma iman karaan. saxaabada fadli ilaahay aa siiyey, fadli ilaahay oo gaaray leeyihiin maadaama ay nebigii la kulmeen calayhi salaatu wasalaam. walakin maca dalika nebigu nin taabiciya oon saxaabi ahayn ayuu asxaabtii weliba raggoodii u wahweynaa, weliba sayidina cumar bn khaaab ahaa, wuu u dardaarmo weyne ninkaa haddaad la kulanto duca ka dalab inuu kuu duceeyo oo dambi dhaaf ilahay kuu weydiiyo. ninkaa waxaa la yidhaha buu yihi uways alqarni, waa reer yaman, reerkaas oo qaran abuu ka sii yahay, halkaasuu joogaa, hooyuu leeyahay oo baari u yahay, lahu umun biha huwa biha barun, baari buu u yahay, hooyadiisuu baari u yahay. ninka haddaad aragto duca ka dalabo ii dambi dhaaf, ilahay ii dambi dhaaf ii weydii dheh, dambi dhaaf ilahay iiga bari isku dheh buu yihi haddaad aragto. sayidina cumar oo weliba amiiru lmuminiin markaa ah ayaa markay yimaadeen kooxihii amdaadii jeyshka muslimiinta, ilan waa laga dalbi jiray meel kasta inay ka yimaadaan, ayuu weydiin jiray, war nin uways la yidhaha yaa yaqaan, ilaa uu helay nin yaqaano oo yidhi anaa ninkaas kada. markii dambe waaba yimid uways baaba ways arkeen ba, ha adigu hebel baa taha, ha reer hebel ma taha, oo hebel qabiilkaa reerkaa ma kasii taha, uways ma lagu yidhaha, hooye ma leedaha, baras ma lahayd oo ilaahay ma kaa caafiyo in yaroo dirham oo kale ama kaaga hadhay, ha haddaba waa ninkii nebiga uu nagula dardaarmay baa tahay, war niyow dambi dhaaf ilahay iyo weydii, oo waxaa tiraa ilaahay oo cumar u dambi dhaaf. waayahay allahuma kfir licumar bn khaaab. haddaba wuxu xageed u socotaa? dhinaca kuufaan u socdaa, aan kuugu qoro halkaas si lagu ogaado maqaamkaaga. maya hayeelin buu yihi, akunu fii qabraai innaas, dadka caamata naasi fuqaradoodaan ku jiraya, waxba yaana gaar ka noqonin, iska kayda. sidii buu uga tegay meeshii buu tagay. sanadkii dambe marka lasoo xajiyey ayuu wareystay dadkii meeshiisa ka yimid, war ninkaa ayaa arkay, annagaa aragnay, wuxuu ahaa nin waxaan aragnay bay dheheen, ninkaas aweys wey, oo xaaladiisay ahayd, wa kaana radha almataac, yani nin miskiin ahoo tabar daran oo taag daran bu oo waxba aan haysanin buu ahaa. markaasuu u sheegay sayidina cumar, war ninkaa iska ilaaliya, ninkaa waa ninka nebigu uu nagula dardaarmay haddaan aragno inaan niraahno ilaahay dambi dhaaf noo weydii, ee ninkii arkow sidaa yeel. kuwii baa noqday, war balka hale amiir lmuminiin baaba yihi ninkan nin khataro weeye, bal ilaahay noo bari. markii dadku ay ogaadeen waa isaga tegay, ma doonaya meel lagu ogyahay inuu joogo. nin saalix buu ahaa, waxaa caadadiisa kamid ahayd baa layidhi salaada subax markuu tukado meeshiisa kama kaci jirin ilaa duhurka, haddana duhurka markuu tukado meeshiisa kama kaci jirin ilaa casarka, hadda casarka hadduu tukado ilaa maqribku haddana fadhihi jiray, maqribka hadduu tukado ilaa cishaha fadhihi jiray, cishaha markuu tukado meeshaa unbuu fadhiya, hadda ilahay xusaya, markaasuu kacaya gurigiisa gaaraya, isla markii haddana meeshuu kusoo noqonaya. saasay caadadiisa ahayd baa leeyihi. nin saalixu ahaa oo ilaahay baari u ah, hooyadiisna baari u ah, laakiin meesha la tilmaamay maxay ahayd? huwa biha baarun. ninkii doonaya marka inuu liibaano, aabihii hooyadii baari ha noqdo. wiilashan yaryarka oo dhalinyarada khaasatan wadamadan ku koray, hadii hadda isku afba ma nihin, hadday afkayga garanayaan, ya isku af ma nihin, hadda inaan ingiriiska baran doonaan umalaynaya, si kale male. ya haddii aan is afgaranayno waxaad yeelaysaan, dadkan oo aada u timaadeen oo gaalada ah, dadkan markii horeba waa aniga idiin sheegay, xaqii ilaahay mayna baran, rabbigoodna umayna mahadnaqin, sidaas awgeed aabbiyo hooye uma mahadnaqayaan. birulwaalideyn agtooda ma yaallo birulwaalideyn. ixsaan caama waa iska leeyihiin oo iyaga dhexdooda ay isu ixsaanaan falaan. beryo hore aan ka fiirsaday oon anigu waxaan waaye baan idhi, nin weyn oo da-ah oo nin dhalinyaro ah oo uu dhalay gacanta uu hayo wadada uu wado waa waaye. kadalika islaan gabowday, yani gabadh yar oo dhalinyaro ah oo islaan gabowday gacanta hayso oo wada oo gaaladan ana waa la waayey, anu ma arkin, ma aqaana aragteeni kale. marka mid baa igu yihi marmar baad arkaysaa, dadkan aada u kala yaqaan, wuxuu marmar baad arkaysaa, markaad aragtana ha u qaadanin inuu ilmihiisa maaha, meesha dadka waaweyn buu ka shaqeeyaa bu. waxaa la amray buu yihi inuu soo warwareejiyo, laakiin ma dhici karta buu yihi nin dhalinyaro oo aabihii gacanta hayo oo da-a ma arkaysid buu yihi, ama hooyadii oo da-a
gacanta haya ma arkaysid uma suubadaan umana qalmaan yar dhalinyaro taxi maraykan beri aan jooga maraykan taksiile wey soomaali ah wuxuu yihi islaam baa taxiga soo fuushay da-ahoo gabowday dhakhtar igee bay tiri buu meel isbitaal ah aada u fog waan geeyey markay ka degtay waxay u tiri buu yihi bahalkan xisaabta caddaadka tiriya ha joojinin isug ilaa aan kaaga soo noqdo anaa iska bixinaya wax badan iga maqnayd buu yii ninkeedoo da-ahoo gabowgo dhakhtar ku jiray soo booqanaysay markay soo noqotay haddana waa soo kaxay gurigeedan kusoo celiyay lacag badan oo 100 iyo ziyaado ayaa kusoo baxday markaasay lacag kaloo fara badanna igu dartay markaasaan iri buu yihi maxaa kugu kalifay arrintan ma ii sheegi kartaa yani taxiga waa iskaga sii dayn karta taxi kalaad qaadan kartay maxaad lacagta isugu badis markaasay iyadoo aada u tiiraanyeysan bay sheeke ii sheegtay waxay tiri anigu horta ninkaan soo booqanaya ninkaygu ahaa da- meeshuu ku jiraa dhakhtarka wiil iyo gabadh baan leenahay wiilka iyo gabadhaas sanadkii waxay noo iman jireen marka oo christmaska meel ayay noo iman jireen tuulooyin agteena ay degan yihiin ma aragno markaasay noo yimaadaan marka maalintii dhaweyd oo hadda ugu dambeysay markii ugu dambeysay way ila soo hadleen mid walba gaar buu ila soo hadlay hooy waa imanaynaa laakiin lacagta adaa bixinay waa kuwa imanaynaa imaatinkaas waa kaa iibsanaynaa waay lacagta kusoo raacayno tareenka ama waxaa adaa bixinaya raalli baan ka habeetay anaaba abaal ku qaba libi ku qaba inay ii yimaadaan oo wax kasta bixiyo maca dalika imaysan imanin markaasaan go-aan ku gaaray inaan qalbigayga ka saara inay jiraanba kuwaas sidaas awgeed dhalinyaro kasta oon arko hadda waxaan jeclahay inaan ilmo ka dhigto on isaga ilmo ka dhigto oo waxaan haya aan siiyo tanna qaado ood lahayd tanna ku darso iska tag saasay igu tiri marka waxaan ka wadaa ha ku dayanina dadkan maadaama xaqii ugu weynaa oo xaqullah haysan haynin xaqulwaalideynna ma hayn karaan umaba samaysnaba saas awgeed waalid waxaan aada maqlaysaan ama iskoolka lidii sheegayo inaan waalidka lala doodo ama maaragtay lala hadlo ama hayelina idinka daa'iman ixtiraam labada waalid ixtiraam baa laydinka rabaa inaadan kor u fiirin hadiyo goor madaxa inaad ka dhunkataan gacanta ka dhunkataan subaxii markaad sii baxaysaan iyo markaad shaqa kasoo noqotaan iskuolka ko waxaad ka bilowdaa adoon meel tagin meel kala gey aabaha iyo hooyada madaxa iyo gacanta ka dhunko waa ku liibaanaysa ilahay baa kugu jeclaanaya subxaana wa tacaala kelimad xunna weliga ha ku odhan kelimad xun weliga ha ku odhan ay shay ku dhahana waayahay dhe waa arrin runtii marka lagu hadlayo afka ka sahla laakiin dhaqankeedu iska dhib badan yahay ilaa man yasara allahu lahu khulaasat lkalaam warkii haddaan soo koobo ilaahay jala jalaaluhu waxaa ugu weyn in loogu dhawaado waa in isaga la caabudo subxaanahu waxdahu laa shariika lahu isaga loo mahadnaqo waxaa ku xiga xaqulwaalideyn baa ku xiga su-aasha ugu dambeysa marka aan kusoo khatimayno nin baa su-aal weydiin kara o odhan kara anigu hadda yani aabiya hooye waa iga tageen waa dhinteen ma joogaan marka maxaan samayn karaa aabbahay hooyaday oo aan jeclahay inaan u ixsaan falo wax ixsaan ah wax baarinimo ah ma igu hadhay mar hadday dhintaan su-aasha iyada waa laga jawaabay nabigaana ka jawaabay calayhi salaatu wasalaam wa min xusni alxad su-aashaasna horay u dhacdo oo nabigaa la weydiiyey nin baa weydiiyey aabbahay hooyaday waa dhinteen wax baarinimo hadhay oo aan u baari fali karaa oon ixsaan fali karaa ma jiraan haabuu yiri haabuu yiri horta hadday nool yihiin dee waa ad u ixsaan falaysa booska la gaarsiiyey waxaa ka mid ahaa in nin nabiga u yimid calayh isalaatu wasalaam uu yihi waxaan rabaa inaan jihaadka ku raaco jihaadka inaan ku raaco jihaadka shayga ugu weyn hooye ma leedahay hooyada ma nooshahay waa laba waalid ma leedahay ha fa fiihima fajaahid orod iyaga maaragta kusoo jihaad marka khaslada ugu dambeyso ah labadaada waalid haddii ay dhinteen oo adduunka aysan joogin ma loo ixsaan fali karaa ha waa loo ixsaan fali karaa waa loo baari fali karaa nabigu uu noo sheegay alayh salatu slam biriga aada u samaynaysa aabbaha iyo hooyada oo tegay kow waa in aada u ducaysaa berinimaday ka mid tahay walidaalika dad wanaagsan qaarkood dhaqankooda waxaa ka mid ahaa wuxuu yihi salaad kastoon ka baxo rabbi ikfir lii waliwaalidaya kama tago labadaada waalid makfiro ilaahay u weydiy kow
arrinta labaad inaad u ducayso biraxma, istikfaar, dambi dhaaf, raxmad, ilah u naxariisa aad tiraad had iyo goor. arrinta saddexaad inaad sadaqa u baxsato, sadaqa bixi u niyo, iyaga way gaadhaysaa, ilahay baa gaarsiinaya subxaanahu wa tacaala. sadaqadaas nooc kastay noqon kartaa, ma aha shardi in oo maaragtay aad xoolo qasho oo dabadeed xoolaha marka iska dhaqano waxaa iska jiray berigii dambe ay soomaalida meelay ka keeneen ma aqaano, xus iyo wax la yidhaha abahay baan xusaya, hooyadii baan xusaya oo kada ayaa iska jiray. asalkeedu waa saxiix oo inaad intaad cunto samayso, xoolaha intaad gowracdo, masaakiinta ugu yeedho, ay dhargaan oo magaranaysaa ay duceeyaan, oo aabaha ama hooyada aad tawaabka u niyeysato weeye aslulmas'ala, waana sax, wax ay ku jirtaana male. laakiin in dhaqan lala eegto oo meeshii dad masaakiina la siin lahaa, dad iska waa aragtay dheragsan meelaha looga yeedho oo xaflad oo kale laga dhigo, oo taas ayaan sharcigu uusan ogolayn, meelna aan ku qotomin. laakiin inaad adiga aadan weliba xataa wakti u samayn, sanad kasta markuu dhintay maxaa qasab ka dhigay, ay waqti oo aada wax heshid, sadaqa la bax. sadaqadana daa'iman tan daa'imkae mutawaasilkaa fiican, sadaqa jaariya, masjid la dhisayo, ceel la qodayo, biyaheeda la cabayo, xoolo nool aad bay u fiican yihiin haddaad intaad iibiso dad masaakiina oo baadiyihii joogoo kale aada maaragtay ku sadaqaysato, inta ay nool yihiin ama wax daaqayaan ama wax sii dhalaan, ajir aabaha iyo hooyadaa u socdo weya fii qabrihima, oo nuur u dareerayo, waa wax weyn weyaan baa lagu helaya. ko waxaa kale oo ka mid ah biri lwaalideyn bacda wafaatihima, markay dhintaan in hadday dardaaran ka tageen, dardaarankoodii aada meel mariso. dardaaran bay ka tageen, dardaarankii ay ka tageen fuli. arrinta shanaad waxaa weeye saaxiib bay lahaayeen, waxaan soo iloobay silatu araxim, silatu raxim, raximkii ay isku kaa xiriiriyeen iyagu, xag hooye ama xag aabbo, inaad xiriiriso. biri lwaalideynta bacda wafaatihima bay dhimashadooda kadib bay ka mid tahay, in raximka aada u ixsaan fasho. oo silaturaxim de waad garanaysaan, waa wax aan ma garanaysaa yani wax koobi kara ajirkiisa iyo khayrkiisa usan jirin. oo xataa nebigu yiri ninkii doonaya in cumrigiisa loo kordhiyo, loo barakeeyo, risqigiisana ilaahay waasic uga dhigo, raximkiisa hasile ha xidhiiriyo. marka raximku wax weyn weeyaan. maxaad u xidhiirinaysaa? labadaadaa waalid awgood, leanna raxim kale maydaan isu timaadeen, iyagaa isu kenkeene. arrinta ugu dambaysa waa sadiiqoodii, saaxiibka la ahaa. aabbahabaa nin saaxiib ah lahaa, ama hooyadaaba qof saaxiibada lahayd oo had iyo goor isla socon jireen oo isjeclaayeen. iyagana inaad u baarinimo fasho, meeshii aada aabbaha iyo hooyada u joogi lahayd iyagana u joogtid oo aada xusuusatid, xataa haddii ay kaa fog yihiin ama wadankii ay jiraan, had iyo goor aad ku darsato dadka aada ma garanaysaa marmarka qaarkii wax u dirayso ama aada ka farxinayso, inay kow ka galaan, leanna aabbaha iyo hooyadaabay saaxiibkooda ahaayeen, falisuxbatihimaa baad ilaalinaysaa, birigooda ayay ka mid yihiin. wa akhiiran nadcu llaha tacaala, ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa waalidiinteenna inuu dambi dhaafo. galabtaa insha allahu galbaha ilaahay ka mida, wadamadeennina habeen ah ee barakaysan min cindihi, in ilaahay subxaana watacaala fadhigaan isugu nimid awgeed, ilaahay subxaana watacaala aabbayaashiini hooyooyinkeen naar ka koriyo oo jannada u geeyo. ilaahay waxaan ka baryaynaa inteena meesha joogta, intana dhegaysanaysa iyo inta hadalkeena la socota, kii aabihii hooyadii ay nool yihiin, ilaahay inuu baarinimada waafajiyo. aabihii iyo hooyadii kii ay tageenna in ilaahay subxaanahu watacaala u naxariisto, khayr uu siiyo ayaan ilaahay ka baryaynaa. caruurtana ilaahay baari ha nooga dhigo, saalixiin allah ha nooga dhigo, ilaahay ha noo hanuuniyo. in allaha calaa kuli shayin qadiir. allahuma salli calaa muxamadi wacala ali muxamadi wslim tasliima kaiira. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.